iyadoo ay jiraan dadaalo uu maamulka gobolka Banaadir uu ka wado dhinaca horumarka iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa haddana waxa qaar ka mid ah wadooyinka caasimada ka muuqanaya burbur aad u xoogan iyo nadaafad darro ka dhashay roobkii ka da'ayay magaalada iyo kuwa ku burburay xaaladihii uu dalka soo maray oo aan weli helin dayactir. Halkan waa wadada marta isgoyska Ceelgaab ee buundooyinka loo yaqaano via Moscow waxa ka jira burbur iyo nadaafad xumo ka dhashay biyaha wasaqaysan oo ay ku soo shubayaan xilliyada habeenkii dadka ku nool xaafada isku raranta ee Ceelgaab iyo roobabka ka da'aya magaalada Muqdisho ee roobabkii ka da'ayay magaalada qaar ka mid ah shacabka iyo gaadiidleyda ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan marista wadooyinka burbursan waxayna baaqu direen maamulka gobolka Banaadir inay ka shaqeeyaan sidii wadooyinka burbursan looga heli lahaa dib u dhis iyo dayactir wanaagsan. فيصل محمود محمد waxaan ka hadlaa dhibaatooyinka ka jiro gobolka Banaadir gaar ahaan wadooyinka maadaama annaga haddaan nahay bajaaley canshuur waa dhiibnaa wadooyinkiina waa iska jaam ayadoo bando iyo wax walba iska jiraan oo ku rafaasan haddana wadooyinka sii jaban wax hadda u jeedin wadooyinkan si u yihiin oo macna u yaalaan gobolka waa la leeyahay ayadka waxaan leeyahay gobolka tor shaqo fiican way qabtaan laakiin soo camalasa bariyahan dambe inay shaqadooda ka jiifaan waxaan gobolka Banaadir ka codsanaynaa inay wadooyinkan burbursan ay naga sameeyaan walaalaheen shacabku waa shacabkooda waxa uu shaqeynaa 4 ka waa shacabkooda aad muxudiin maxamed waa aragtaan wadadii horta tusaale waa meeshan aan joogno waa faras magaalada faras magaaladeeda weey saasoo tahay haddana isweydiin ma laha mala dhisaayo ilama dhisaayo maanta lisma weydiinayo waxay u baahan tahay in wax laga qabtaa waa mid koowaad waa taas ku amaanaya gudoomiyaha gobolka Umar Firishan ku amaanaya inuu magaalada bilicdeedii wax ka qabto waa mid kaliya oo soo jireeneed haddii gobolka Banaadir la dhaho waa meesha Ceelgaabta waa hooyadii meesha wadooyinka ay ka soo cuskuntay marka waana aragtaan hadda dhibaatada ka jirto waxa la dhaxmariyaa godadkii saxmad baa la dhaxmariyaa godad jajab baa la dhaxmariyaa magacay Abqaadir Xasan Maxamed Sadiq waxa ku warama gudoomiyaha gobolka shacabkan Soomaali oo mas'uul ka wadadan faras magaalada Muqdisho amburtoor Ceelgaab oskororan waa bari wadadii marka alma koram shacabweena oo furnaa bajaajlooyinka wadadii waa burbursantahay gadoomi moota bajaaj anshuura la qaadaya baabur anshuura lagu qaadaya anshuurtii wadadii nan wax ku dhisooy mal wadada hadda madaxweynaha mara korona feerisa jiraan leey koroni waxay dhibka keenay wadadan biyo dhacdagan way waxaa magaalada Muqdisho wadooyinka dhexmara ay ahaayeen kuwa bilic wanaagsan leh isla markaana soo jiita indhaha dalxiisayaasha iyo bulshada Soomaaliyeed waxa maamulka gobolka Banaadir loogu fadhiyaa inuu wax ka qabto dib u dhiska wadooyinka iyo soo celinta bilicda caasimada magaalada Muqdisho isla markaana ku soo celiyo sidii hore ay u ahaan jirtay. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.